xaashi cumar xasan wuxuu ka tegey 3 xaas ah iyo gabar yar. halkan oo ah isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa hadda laga qaadayaa meedka Allah u naxariistay xaashi cumar xasan oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo muddo ku dhow 20 sano u xirnaa dawladda waddanka Talyaaniga. Allah u naxariistay marxuum xaashi cumar xasan ayaa dawladda waddanka Talyaanigu waxa ay muddo ku dhow 20 sano ay u haysatay kiis la xiriira dilka Ilaria Albi oo ahayd gabar wariye ah oo u dhalatay waddanka Talyaaniga iyo filim qaadiheeda kuwaas oo Soomaaliya lagu dilay bishii Maars 20-keedii sanadkii 1994. muddo ku dhow 20 sano oo u xirnaa markii lagu waayay kiiskaas lagu haystay ayay dawladda waddanka Talyaanigu waxa ay siisay lacag gaaraysa 5 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay u siisay magdhow ahaan ku aadan intii uu xirnaa. Soomaaliya ayuu ku soo laabtay sanadkii 2016 xilligaas oo laga soo daayay xabsiga ku xirnaa ee waddanka Talyaaniga. wixii intaasi ka dambeeyay waxa uu ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool waddankiisa marka uu rabana u safray dibadda. Allah u naxariistay marxuumka ayaa saakay qarax miino waxa uu haleelay xilli uu marayay degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho gaari u watay. waxaana dhaawac ahaan loo keenay isbitaalkan isla markaana halkan ayuu ku geeriyooday inta dhaqaatiirtu ay xaaladiisa caafimaad la tacaalayeen marxuumka. waxaa loo qaadayaa meydka oo lagu aasaya sida ehelku ay noo sheegeen deegaanka Laanta Buure ee gobolka Shabeellaha Hoose. Axmed Cumar Xasan oo la dhashay Allah u naxariistay marxuum xaashi ayaa inooga sheekeeyay sida uu qaraxan uu ku haleelay walaalkii iyo sidoo kale taariikhdiisa. wuxuu ka dhacay degmada Dharkeenley qaasatan waaxdan dham Yaasiin Cartin. marka walaalkay dadka qaar waxay leeyihiin waa loogu xiray, qaar waxay leeyihiin soo boodo waajidka dad kale la damacsanaa. qofba waxay leeyihiin laakiin ilaaha xaaladda dhabta ee og anaga hadda kulay wax aan ka sheegi karno ma lahan, laakiin waxaan ku xaqiijin karaa inuu dhinto maanta. dhaawacaan ku soo qaadnay wax yar markii aan soo wadnana uu geeriyooday. xaashi cumar xasan wuxuu ahaa horta nin shacab ah, ma ahayn nin dawladna u shaqeeyo, ma ahayn nin hay'ad gooni u shaqeeyo, ma ahayn nin mataqaanaa dad gooni ee lagu tuhmi karo. wuxuu iska ahaa nin shacab ah. marka waana nin haddana muddo iska dhibanaa oo intaasoo sano Talyaaniga ku xirnaa. adiga soo deesmadiisa ka bacdi familigiisa inuu la kulmo hooyadiis oo muddo aan arkin, walaalihiis iyo kulli iska noolaa. adiga waxyaabihii dhibaatadii badan oo soo martay inuu ka bogsado darteed oo meeshan u joogay, walaalihiis oo la noolaa, dadkiisa oo la noolaa. marka maanta kulli waxaan dareemi karaa gacanka xaq daran inay dishay, waa dhintay. Allah u naxariisto. wallahi xaashi dhowr mar uu Soomaaliya imaaday, laakiin hadda markii ugu dambeysay adiga sanadkan dhexdiisu imaaday, adiga bilihii mataqaanaa ugu horeeyay u imaaday. waa gartay meydkiisa xagee lagu aasayaa marka? meydkiisa waxaa lagu aasayaa hadduu alla idmo insha Allah afgooya agteeda meel ah oo Laanta Buure la dhahayo. Professor Yaxye Sheekh Caamir oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed isla markaana door weyn ku lahaa soo deynta Allah u naxariistay marxuumka ayaa inooga sheekeeyay taariikhda iyo sidoo kale qaabkii marxuumka looga soo daayay xabsiga ku yaallay waddanka Talyaaniga. Talyaaniga lagu xiray kiis oo hadda xuska gardarro ah waxaa u daba kacay intaas ay ugu dambeynna waa la soo daayay. intaan ka dan lahayn waxay soo xura inuu dibadda ku noolaado, soo xuraan la soo daayay waddanku yimiday. hadda ani ma ogeyn xataa waddanka inuu joogo, marba soo xura haduu yimiday waa naqday laakiin saakano magaalada jooga oo la sheegay qaraxaas sabab loo qalxina ma aqaan marka siyaasad dawladeedna shaqo kuma lahayn, urur oo ka tirsanaa gooni ma jirto. nin waddankiisa ku soo naqdo in qaraabadiisa salaamo u yimid ay ahayd. markii la soo daa xor noqdana waxyaabo samafalo sameeyo ceelo qoday oo lacagtii oo xaq u helo oo ku qoday masaajid inuu dhiso waa maqlay. waxyaabo badan oo wanaag uu sameeyay. marka saakale ogaada Allah u naxariisto. xeerkiisa dhowr iyo 10 sano daba ordayna aniga iyo abukaati ducaale iyo abukaati shaqo kale dhowr jeer aan tagay Talyaaniga, baarlamaanka Talyaaniga aan tagay, maxkamadda ugu dambeysay laga soo deynay aan joogay oo ka difaacay in xaq darar u haysto. Ilaahay waa qadaray in la soo daayo. mar haddii banaanka la keeno xataa xuquuqdii qareenada hala siiyo la yiri isla goobtii ugu sheegay inaan waxba ka rabin aniga hadaf kaliya Allah oo ahaa soo xuro banaanka jooga inaan arko. waana arkay balankiina waa ka rumeeyay. nin dhalinyaro oo hadda intaasoo sano xabsi ku jiro qiyaas kartaa aragtidiisa isbedelayso
culays mujtamaca uu ka tegay marka ugu horeysuu dibadda tegey asoo xaq ka maqlay raadsanaya in asigii dembi laga sii gala oo dhowr iyo 10 sano 19 sano ka badan oo xabsi ku jiray hadda haddii la soo daayana mujtamaciisoo ka mid noqday noloshii dhaaftay oo intaasoo sano u xero dib uu kubaraareynaayo waa guursaday ilmo u dhalay samafalka aragta uu samaynayo waalidkiisu aabiis mar dhow dhintaba hooyiisa nool hadda joogto haddii mujtamacaanuu ka mid ah nin dalkiisa kusoo noqdo rabo inuu nolol cusub bilaabo oo ahay dowlad iyo siyaasad iyo urur iyo waxoo shaqo kulahay ma jirto cid hadda lagu aaday karana ilaa hadda lama hayo ilaa cidu ay qirato ee tiri anaa ka dambeeyey